على الدولة سوركي يسرتشوقي ويكعبتها على قداي مركاين ما أنت لبضع بوين كديننا وحى سيدا على وضع سعتان قدوميها حسب جودني هذلي كودي بشاغس مالنتي خميستي وحى وكهذا لسد حرموده أساسية وآدي مهم جوا ودن كنا وأيتوكوا تاي أرنت الدورشوين كاي تاي يهشيس كي لقى قاري وبقادي أرنت لبعضنا تاي أرنت قبل كسناق كتاجن يحبكي أنه حسبيهان إنه أركني إن أرنتاسي حل لو قاري كرو يأرنت قدام بيسي أو هاي maamulkeeni yahab maamulkeeni inuu nidaam dictatori oo kale talsnima oo ku sii socdo marka la eego waxa dhacay iyo dadka la xidhay iyo waxyaabaha soo dhan arimaha uu gudoomiyuhu ka hadlay arinta ugu micdaweyne waxa ahayd arinta gobolka Sanaag waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay in wadanka ay hore jabhada u soo mareen jabhadahaasi wadanka soo marayna habkii loo xaliyay loo maray ay ahayd odaytinimo waayeelnimo dulqaad iyo mas'uuliyad madaxweyne ay ahayd maanta laakiintiisa xikmadda iyo odaytinimada iyo mas'uuliyadaasi aanay madaxtooyadeeni maxaan ku rahdaa aanay oolin sababta aanay oolin waxa weeyaan waxa maanta madaxtooyadii Soomaaliland fadhiya madaxweyne dulqaadka doqonnimo u yaqaan wax kasta oo aad la akhrido iyo meel kasta oo aad la eegto dulqaadku muhiimad u leeyahay ee waliba hogaaminta u leeyahay hadda dhaqanka Soomaaliga eegto qofka reer xukuumaya ee suldaan laga dhiganaya ayaa la eegi jiray inuu qof dulqaad leeyahay oo caruurta loo diri jiro loo oran jiray gogasha ka xumeeya si loo darso oo loo fahmo qofkan inuu berito qof dulqaadan karayo yahay hadda dimuqraadiyadda iyo waxaynu sheeganay aynu ku dhaqmayna adeegto dulqaadku waa rukniga koowaad ee dimuqraadiyadda meel aanu dulqaad oolin dimuqraadiyaddu ma taalo labadaasba ka kaala diinta islaamka ee aynu ku dhaqmayno quraanka kariimka ah 103 jeer buu ka hadlaa dulqaad mar layna farayo mar wanaagiisa laynoo sheegayo siyaabaha kala duwan ee doonaha ku yimaadee laakiin 103 jeer buu ka hadlaa quraankuna doqonnimo dulqaadka uma yaqaan sidoo kale magacyada ilaahay sifaadka ilaahay ee ilaahay isagu go'aansaday isagoo boqorkii dunidana inuu isu bixiyo ayaa waxa ku jirta dulqaad badane waxa ku jirta sabir badane inagana miskiin yaro dadkeena yar waa boqorkii ilaahay baa inuu dulqaad badan yahay isku amaanay miskiin inta yare Soomaaliland xukuma oo daalaadiciisa la arko maanta iyo sida maxaan ku raahday ay uga dulduulayso ayaa yidhi dulqaadku waxa weeyaan waa doqonnimo waa taata maanta aynu madaxa isugu wada jirnay aynu meel ugu socon laanahay taawey arinta caare haddaan anagu ku celinaynaa hal aan wada hadal iyo wanaag iyo dulqaad ahayn male hal kale arintaas ay leedahay waxa ka soo horjeeda waa qurun iyo dheeri in looga sii dhaadhaco tan anagu soo jeedinayna ee gudoomiyuhu ka hadlay ee aanu ku celinaynaa waxa weeye arinta caare xalkeedu waa in wada hadal iyo xikmad iyo dulqaad iyo sabir madaxweyne lagu maxaan ku dhahdaa xalliyo madaxweynaha waxaan soo jeedin lahaa 103 meelood ee quraanka lagaga xusay dulqaadka inuu eego baaro akhriyo fahmo si uu u garto dulqaadku inaanu doqonnimo ahayn oo ragnimo yahay marka xisbigu marka hadaba issue iyo arrin ka hadlo dhaqan baa abuurmay wasiiradeena qaarkood ay doonayaan inaanay issue-ga iyo arrinta laga hadlay ka hadala ay dadka meel kale u la kacaan xanuun iyaga hayay iyo meel xoqanayaan ay ula kacaan oo ay maxaan ku raahdaa ay ula tagaan wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yiri xisbiga wadani waa Soomaali weyn waxa aanu garanahaynin hadalka uu oranaya macnaha uu leeyahay iyo saameynta uu yeelanayo iyo waxa uu maxaan ku raahdaa marka uu mujtamac xisbi qaran oo 240 ay u codaysay hadalkiisa uu hadalka leeyahay hadalkaas uu baxaya adduunku uu akhriya luqada kale lagu turjumaya
positionkii Somaliland ee wada hadallada uu daciifinay laakiin isagu garashada inaanu lahayn ayaa run ahaantii maxaan ku dhahdaa hadalkiisa ka muuqata waxaynu ognahay ninka sidaa u hadlaya wasaaraddiisa sida u dayacan tahay taana anagu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa wasaaraddiisa sidoo u hagaajin lahaa wuxuu maamulaa wasaarad ka dhaqaale badan 3 wasaaradood oo la isku daray oo waliba wasaaradihii muhiimka ahaa oo la isku daray haddana sida la socotaan radio Hargeysa halay hadda tagtay ma dhageysan kartid TV-gii qaranka qaybtiisii guduhu waa la wada socotaan oo ma shaqeyso marka idaacadii TV uu maamuli kari waayay in issues-ka waaweyn ee qaranka markay madaxda xisbiyadu ay ka hadlaan maxaan ku dhahdaa mirqaan hadlo run ahaantii waxaan isleeyahay inay dhaawac weyn u geysanayso sumcaddii iyo maxaan ku dhahdaa wada jirkii iyo maxaan ku dhahdaa ummadnimadii Somaliland annagu taanu ka hadlanayno ku celcelinayna waa issues-kaas haddii arrinta caarad tahay position-kaas aanu annagu ka leenahay war wada hadal iyo xal iyo wanaag iyo xikmad iyo odaynimada lagu xaliyo haddii wax ka duwan hayo dahabbareero ha sheego habbareero ha yiraahdo dagaal baan ku xalinaynaa halkay marka la xusho ee ay la tagta ha arko laakiin waxba yaanu ku meeraysanin in ciidamada maxaan ku dhahdaa uu wax ka sheego markii wasiiradu sidaa u hadlaan annagu ma jawaabno sababta aanan ugu jawaabaynina waxa weeyaan waxaan u aragnaa hadallada noocaas inay yihiin hadallo ka hooseeya meeqaamkii dadka siyaasiyiinta ah ee mujtamacan eeganaya ay ku wada hadli laayeen hadallo ka hooseeya oo aad iyo aad uga hooseeya inay yihiin ayaan run ahaantii u aragnaa waxaan u aragnaa inay tahay aragti gaabnaan iyo qofkii oo aan hilaadin lahayn fahamkiisa siyaasiga ah inuu hooseeyo marka inaanu intaanu soo fadhiisana anaguna la murano run ahaantii waan ka gaabsanaa waxa weeyaan shacbiga ayaa judgment maxaan ku dhahdaa sameynaya oo xukumaya laakiin tiisa tashalay waxa weeyaan ninkii meedku ka dhacay ee yiri hadduu sii go'ay oo waxa weeyaan tii horeba maxaan ku dhahdaa tu ka daran ayuu wasiirku run ahaantii ku hadlay shalayto shacbiga reer Somaliland oo dhan baana ka maqraatay oo maxaan ku dhahdaa siday uga xumaadeen arrintaas ay u diideen ay uga soo horjeesteen ay ahayd wax wada aragteen oo alla wada socoteen oo maxaan ku dhahdaa baraha bulshada iyo meel walba lagu faaleynay xalay xataa wasiirro dawladda ka tirsan waayo dadka qaar baa damiirkoodu nooli wasiirro dawladdu ka tirsan ayaa aniga ila soo hadlay si ay ugu sheegaan arrintaasi inay ka xun yihiin maxaan ku dhahdaa wasiirka xukuumadda afkeeda sheegay inuu ku hadlaayo maxaan ku dhahdaa uu ku talaabsaday ku hadlo